ugaas Ismaaciil Cabdi Huluul oo kamid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland waxa uu xukuumadaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu baaqay inay dib u furaan miiska wada hadalka ugaaska oo si gaar ah ugu waramayay telefishinka bulsho waxa uu soo jeediyay in madax dhaqameedka beelaha dega Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka qayb qaataan wada hadalka ugaasku waxa kale uu sheegay in hadii wada hadallada soo noqnoqday ay ka qayb qaadan lahaayeen madax dhaqameedku aanay marnaba aanay intaasi sii socdeen miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya doorka ay ku leeyihiin madax dhaqameedka Soomaaliland iyo madax dhaqameedka Soomaaliya waxaan leeyahay in badan baa arrinkan soo noqnoqday waxa uu la soo noqnoqonayna waxa ka maqan aqoon-yahankii madax dhaqameed ee waayarka maanta marka laga bilaabo waxaan ka codsanayaa xukuumadda Soomaaliya iyo Soomaaliland in doorkooda la siiyo miiska wada hadalka madax dhaqameedka taasay wax sax ku noqonayaan iyagoo walaalaha la kala tagay Tuuriyada Soomaaliland geesteeda ugu haysa hadii kale way israacayaan labadu way yaalaan meesha yaan la oran way ku haysa labadaba hal la soo qaato horta marka hore hadii la kala go iyagoo la qosliyo ay saaxiibayihiin oo madax dhaqameed ka taliya la kala go'ay hadii la isnaacana iyadoo la isoo gol yahay oo qabyaaladii qurunkiiba meesha laga raacay la israacay waxaan leeyahay haani guntay ka tolantaaye madax dhaqameedka doorkooda hal laga siiyo wada hadalka miiska Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan leeyahay madax dhaqameedku waa ka wax walo mashkilad oo dhacaba xalliya xukuumaddu u yeerato xukuumaddaasina u yeerato lama kala maarmi karo kamana maarmi karto xukuumaddu maanta iyay oranin miiska wada hadalka madax dhaqameedku ma iman karo war waxa loo baahan yahay madax dhaqameedku aqli buu leeyahay aqoon buu leeyahay waarnimo buu leeyahay waxa soo dhan wuxuu ku mutaystay oo ku qaatay way aragnimo Soomaaliland inta goor wax ka dhicin waa dugti Soomaaliya inta goor wax ka dhicin waa dugti uu madax dhaqameeduna xalliyay halka iyagu baa keena cid kale ma keento waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland iyo Soomaaliya hal loo taxgeliyo oo hal la siiyo saamiga ay ku leeyihiin miiska wada hadalka waxaan leeyahay siyaasigu iyo oranaynu baa wax yaqaanee waa inuu la tashado dadkiisa dadka uu la tashanaya waa madax dhaqameedkiisa ka hooseeya ee wax walo adag baa uu diro waxa loo baahan yahay ninka aqoon-yahankii ee cilmiga bartay inuu aqlina ku daro aqlina ku daro looma baahna shafka soo buur ya madax dhaqameed lama arki karo maanta kale lama yiraahdo haani guntay ka tolantaay waxaan leeyahay xukuumadda aan sheegaya Soomaaliya iyo Soomaaliland madax dhaqameedka Soomaaliya iyo madax dhaqameedka Soomaaliland inay talada qaybtooda qaataan waa niman la soo naqeeyay oo bulsho weyn Soomaaliya ama Soomaaliland haatay bulsho weyn hay u taliya soo dhaqaysatay waa nin la soo doortay 200 nin laga soo dhaxbaxay aqli iyo aqoon basita kaasoo kala loo baahan yahay in arrinka loo dhibto arrinkan in lagu soo noqnoqday saddex sanadood soo noqnoqonay waxa ka maqnaa doorkii madax dhaqameedka ayaa ka maqan meesha waxaan leeyahay maanta on ku boorinayaa xukuumadda Soomaaliland iyo Soomaaliya madax dhaqameedka doorkooda laga siiyo meesha ugaas Ismaaciil Cabdi Huluul waxa uu sidoo kale ka warbixiyay sida ay uga wada shaqeynayaan dhaqanka iyo siyaasadda waxay soo waafajin karayaan tan marka ay noqoto waa laba reer oo la heshiinayo nimka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba reer ka soo qaad labadii reer iyaga dhaxgeliyo iyaga yaqaana sida isugu keenayaan sida isugu xulayaan iyaga yaqaan si taasi waa taa laga maarmayo si kasta haday u dhacdo laga maarmayo madax dhaqameedka kaana waxba u sheegayaan kana waxba u sheegayaan madax dhaqameedku iyagu isku mowqif ay taageen sida beelaha heshiiyaan meetana u heshiisinayaan ugu dambeyn ugaaska ayaa soo jeediyay inay madax dhaqameedku ay la shaqeynayaan xukuumadda isla markaasna ay la toosinayaan wax kasta oo bulshada u dana xukuumadda ninkii wax ka xumaynaya mise ninkii wax la toosinaya tan ninka iyada taaga talaabaha ka qaado ninka wax la toosinaya ee wax isku mowqafka yihiin ay wax wada doonayaan inay tilaado sida ma hadii waxa loo baahan yahay sharci hufan oo laga wada socdo waana horaba kuugu sheegay haani guntay ka toltaan koodi madax Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa.